السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طاوضيال waxay noo sii socon doonaa taxaneeyni sheekada Shandanley qaybteeni saddexaad ama qaybtan ka horeysana waxay noogu dhamaatay ninkii Balayax oo inta uu geedkii dhakada uga baxay raka yar badhida saaray oo laba laabood oo kala durugsanna labada gacmood la kala cuskaday qaybteena maantuna waxay noogu bilaabanaysaa sidan libaaxi intuu indhaha kor leliyay afkana kala waaxay ayuu geedka hoostiisii istaagay balaayo kolba dambe ayaa darane Balayax oo geedkii fuushan oo isla bilaayadii wad ka badbaaday iskana eegay inuu libaaxu ku soo boodo ayaa haddana waxa uu maqlay sanqar kale oo geedka gebigiisaba wada ruuxday wuxuu maqlay shamamax ur aad iyo aad u qarmuuna waa uu uriyay kor buu eegay mise wuxuuba arkay bahal mas ah oo dabadu orgleeg tahay oo madaxiisana ballaadhka aad yaabto oo intuu laan kale kaga soo gudbay gacantiisa soo dhaafay oo aad u miliqsanaya oo galaabi xiniya carab laba farlaarle ah oo aad xadhig moodo maskani waxa uu ahaa laba iyo luqun madoobe aad u dhalay oo geedkaasi hoygiisa uu yahay guriganna reerkii dagaaba uu isaga uga qaxay ninkii Balayax dhid burbuuran ayaa shax ka soo yiri oo tin iyo cirib wada qooyay kadibna intuu Balayax indhaha galka ka rogay oo afkuna intaa ka leeg kala tagay ayuu gacantii masku ka soo korayay si degdeg ah kor ula booday isaga oo qaylinaya oo firka naxsan ayuu luquntii maska gacanta si xoogan ugu daafadeeyay tabadeedna maskii ayaa dhulka u dhacay culayska masku qof buu miisaan leeg yahay kadibna meel libaaxii u dhow ayuu gab ku yiri tabadeedna libaaxii ayaa mooday in ninkii geedka fuulay uu soo dhacay kadibna ku soo booday maskii iyo libaaxii oo mid walbaaba cadhaysan yahay ayaa geedka hoostiisii taf isku yiri libaaxii wuxuu bahal qaniyaa markiiba ka buuxsaday adhaxdii maska balse maskii ayaa isaguna miciyihiisii waabayda lahaa ku arooriyay dhegtii libaaxa kadibna sidii ay isku haysteen ayay labadoodiiba naftu iskaga dulbaxday oo ama way isku dul qurbaxeen Balayax naxdintii aawadeed ayaa waxa uu ku dul qalalay leen geedka ka mid ah walina cabsidii kamay hadhin waayo maskaxdiisu kumay soo celin wax jawaab ah oo ma oga inay labada bahalba dhinteen dabadeedna habeenkii oo dhan wuxuu ku tigtignaa geedka dushiisii wuxuuna arkayay inay labada bahal isku maran yihiin oo kaliyaata laakiin muu garanayn inay labada bahalba ay isku dul dhinteen Balayax waxa uu islahaa libaaxa iyo masku iyaga isku mashquulsan oo haddii ay isdhaqdhaqaashiso way kugu soo baraarugi doonaan sida awgeed habeenkii oo dhan saqa neefsasho ka badan uu iska ilaalinayay qalbigana wuxuu iska lahaa ilaahow colka ayaga col ku furo waxa kale oo hoos ugu xashaashaqay alla maxaa kugu soo watay geedkan jaan ee aad dhirtaa kale u fuuli weyday ayuu naftiisa ku caananayay Balayax wuxuu habeenkii oo dhan geedka dushiisii ku tigtignaadaba markii uu ka hawaabari soo iftiimay nin iyo geed la kala gartay ayuu hoos u soo yar daadegay oo wiisha ku biniiniyay labadii bahal oo geedka hoos jiifa shaki baa kaga jiray inay bahaluhu nool yihiin iyo in kale dabadeedna wuxuu arkay dhiig badan oo maskii ka qulqulay iyo libaaxii oo isaga laftarkiisuna lugta taagay kadibna unyar buu hoos u soo dhaadhacay isaga oo weli shakisan oo aad isku bambaaninaya dhulka markuu qoobka la helay isagoo aan xagga iyo xagga toona eegin ayuu jarqaf yiri oo dhababaco cagaha wax ka day dabadeedna isagoo aan mar qura xiiq tiran ayuu oradkii ku tagay meel saddex geeldaaq u jirta geedkii Balayax intuu dhowr jeer xagga dambe qooraansaday ayuu ismuu taagine kadli cagaha boorimaystay weli waa uu naxsan yahay wuxuuna u muuqdaa nin balaayo ka samata baxay cunto u dhadhamiye waxa uu noqotay qodxaha jeerinka ee cambuusha loo yaqaan faraha curdinka xangeeyada iyo geedimroodka oo curdin badan lahaa ta kale dad aragooda wuu iska ilaalinayaa oo waxay kaga daran yihiin baxalihii xalay helay waayo wuxuu ku soo fool leeyahay jihadii ay deganaayeen beesha cudbi oo ay beeshooda colaade dhex martay sidaa awgeed wuxuu il foojiga leh iskaga eegayaa wixii bildhaan rag ah waayo wuxuu ka baqayaa in la arko oo haddii la gartana dhegta dhiigga loo daro Balayax goor casar gaaban ah ayuu gaadhay jiitii beeshu deganayd dabadeedna isagoo isqarinaya ayuu iska dhex qaaday kaymihii xooluhu daaqayeen wuxuuna ka baadhayay xoolaha keenta daaqaya wax leh sumadda cudbi reerkooda balse mar dambe ayuu arkay aw halay ah oo qoorta ku leh laba farood iyo hareed dabadeedna wuu gartay in horta sumadda alihi ay tahay awrtii cudbi reerkooda aad buu u farxay kadibna keentii awrtu daaqaysay ayuu dhabacday markuu cabaar meel carrabataax ah
oo awrta u dhow jiifay ayuu mar dambe meel suryo ah ka halaacsaday laba dumar ah oo awrtii xadhkaha ka furfuraya. kadibna intuu soo dhukisay ayuu ku soo dhowaaday si uu wejiyadooda u aqoonsado. wuxuu soo dhukusaba hal cabbaar ah markuu u soo jiirsaday ayuu gartay inay labada dumar ah mid ay tahay cudbi. dabadeedna wuxuu hoos u yidhi qoodhay iyo xeraday waa iyadii. balayax markuu cudbiisha ku dhuftay waxaa jidhkiisa isku jabisay jiridhaco farxadeed, madaxana waxaa ka fuuqday qolof weyn. jawin ayaa yaro leh ayaa ku soo kordhay. dareenkiisu wuxuu isku qanciyey inuu muraadkiisii gaadhay. cabbaar buu soo dhukusay oo uu ku soo dhowaaday. markuu